walaal anaga markii hore waxaan nasiisay dhulkaas dawladda hoose waxaa leeyahay dhulkaas kuma shaqo laha waxaa ku shaqale wasaaradda ayaa dukumiinti nasiisay markay nasiisayna waxaan sugaynay in journalistkii naloo habeeyo meeshii naloo fasaxo ayagoo aan hawlihii ku jirno waxaa la aragnay oo meeshii la wada dhisay waa gartay dhulka aad ii sheegtay in dawladda hoose iyo xukuumadda wasaarad ka tirsan ay siisay maxay tahay awal sababta ay idin siiyeen annaga waxaan nahay maxaa la dhihi jiray ummadda rayid oo 200 iyo dhowr qof ah waxaa dhacday in la yiraahdo wasaaradda dhulkaas damayaalo waayo waxaa xukuumaddiisa iskale wasaaradda gaadiidka badda iyo dekedaha waa gartay kadib wasaaraddii ayaa waxaan geysanay dukumiintigeedii waa gartay marka dukumiintigii mar alaabay markaan geysanay waxaa dhacday in rajadeena ay aad u fiicnayd oo aan kusohayn joomitigaa la idin geynayaa meeshii waa la idin cabirayaa cabirkii intaan la gaarin ayaa waxaa dhacday in bruj ay dhagax kusoo wareegsatay wallaahi waxaan garanla'nahay taas waaye oo aan isleenahay hadda saxaafadaha iyo meelihii lamidka ah ka hadla bitaal waxaa noo muuqata in meeshaan lacag ay shaqaynayso cadaalad ayna shaqaynaynin intaasoo ummada intaasoo 200 iyo axaab yahay arrintan ma u bandhigteen iyaga qudhowdu maadaama horey ay dhulkan idiin siiyaan waa u bandhignay waa loo tegey waxay yidhaahdeen wixii meedintaa iskale maamulkii na siiyey ayaan annaga wax weydiisanay ilaan waxaanan qofaan meesha maamulka ah oonan u tegin male ma dhici kartaa nala dhahay haa maxaad kala kulanteen marka maamulkii hore ee dhulka inay siiyey ee iminkaa dib ugu laabateen ilaa iyo hadda waxaan ka la'nahay dadkii waxoodii ha naga qaadeen wasaaradda disiino waxaan aad na siiseen waxeena noo cayima na siiya annaga markii hore dawladda hoosaa na siisay kadibna waxaa la yidhi wasaaraddaa bixinaysa dhulkaas dawladda hoose ma bixin karto waayahay wasaaradda magaceeda ma ii sheegi kartaa wasaaradda gaadiidka badda iyo dekedaha waan gartay haye bal arrinkan dacwadiisa muddo ayay soo socotay iminka xaggee bay wax marayaan dad badan oo danyar ah sidaa ii sheegtay ayaa dhulkaasi horey loo siiyey halgee arrinka wax maraya bal si guud sharaxaad uga sii dadka ku daawanaya ama ku dhagaysanaya annaga dacwaan waxaan geysanay maxkamad waan leenahay dhulkaas ana looga dhiciyo dadkaas dadkii markaan maxkamaddii uga badinayna hadda waxay leeyihiin anaka wasaarad baa na siisa markale waxay dhahayeen dawladda hoosaa na siisa waaya cidda dhahaysa ee dhulkayda ku haysataa wasaaraddu ay dhahayso wasaarad baana siisay yaa weeye iyada kollaytaba annaga hadda markii hore maxkamaddii markii la tegey ayagaa imaan waayey maxkamaddii haddii la muddooyey waxay xukuntay in dhulkii annaga leenahay waaya yaa weeye cidda idinku haysata marka dhulka yaa idinku haysta idinka hormuudaa nagu haysataa waa gartay qudhooda hormuud iyo shirkadda bruj aad sheegtay inay dhismaha halkaa ka wado ma kala hadasheen arrinka si gooniya waxba annaga aan isku soo hor fadhiisanay ma laha waxaa dadkii isku hor fadhiisin kara ama maxkamad ama wasaaradda dukumiintiga ayadaana laga rabay markii annaga aan dacwanayno dhismaha maxay yihiin aan leenahay inay dadka isku keento idinka maxaa leegi idinka maxaa leegi waa gartay arrinka haddii halkaas iminka uu marayo maxay tahay ka guddi ahaan iyo guud ahaan dadka dhulka leba tillaabooyinka aad qaadaysaan iminka wallaahi horta waxaan rajaynaynaa bacdamaa cadaaladdu ay hiilo tahay oo aanan islahayn maanta dadaa la idinkaga hiilinayaa 240 iyo xaaxaad dhul ay leeyihiin in hal shirkad ay maxay ahayso ay siiyo aniga kolleysaba shaksi ahaantayda ma qabo ummadda soomaaliyeed baahideeda awgeeda waxaan isleeyahay kolley iyo
كل وسيلة waxaan dareemayaa dhowr sanadood inaan dhulka sugayno waa gartay qofkii cadaalad aan u haysano warqad oo aan sheegahayn wasaaradda soo baxday dadkii shaqaynaya oo wasaaradda annaga wax naga siiyey ay weli taagan yihiin oo shaqaale ka yihiin waa gartay haddii arrinkiina wax laga qaban waayo maxay tahay marka tilaabooyinka aad qaadaysaan idinka annaga kolley taba dadkii dhulka ee dukumentigu haystay aan u bandhigaynaa waxay tagaysaa ama dagaal ama maxay hayso banaanbax oo dacaayado ah waa gartay fariinta ugu dambeysay aad u diraysaan madaxda dalka ugu sarreeya ee arrinkan ku aadan ee aad u gudbinaysaan maxay tahay marka ugu horeyso fariinta ugu horeyso waxaan u diraynaa madaxweynaheena federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaan leenahay adigoo danta iyo dadka fiirinaya iyo dalka fiirinayana ummadda Soomaaliyeed adigoo fiirinaya cadaaladda ummadda Soomaaliyeed waxaan kaa codsanaynaa in arrintaasi aad annaga aan dukumiinti laba dukumiinti u suubsano qaras nooga baxa oo aan maxkamad ku tagnay sugunta goolta waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha dalka ka taliya ee ah maamulka dowladda Soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya intaba waxaan leenahay fiiro gaar ah inaad aad ku fiirisaan ayaan rajaynaynaa arrimaheenaan oo intaasoo ummad Soomaaliyeed oo isugu timid حتى تنقربه إجابات يحتاجون مسؤولية أولياء وآمس وادي أدوهي معنا عقل هذا يا جلا تفكرنا يوم مسؤولية وقطاع مكا باهدة جداول وموكا الجروسنا إلى النقطة سواء من نقطة أمر أما تقال إنه هذا الستا رئيس الوزراء مدن مدحوين في الدنيا برلمان أنت روحان ليه هاي أنت روحان ليه ولا ريالو إنت فيرنا يدنت جد أمة الصومالية دنت جد أمة الصومالية عدالة هايين هي لسه أنا جنا هنو هي لسه وح مربنا هذا نقصي سنة أنا مربنا من تيجي نهار فيري هلا أخي وقت جوها إنت صار ليه يعني